ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aragtida ayaa ah mid ka mid ah dareeradu inoogu muhiimsan waan habka ugu fiican ee ugu falgali karno waxa hareeraheena ka dhacayo iyo waxa dibaddaba ka dhacaya. Sidaas darteeda waxaan ka hadlaynaa kala duwanaanshaha xagga awoodda ee muuqaalka ah. Aragtida bini'aadanka way ka daciifsan tahay noolaha qaar, laakiin bini'aadanku wuxuu isticmaalaa aqli fiyow oo qalqiga kale ka maqan. Isha bini'aadanka iftiinku wuxuu kaga dhacaa wiilka isha, waana meertada yar ee madow ee ku dhex taala bartamaha isha. Isha kan ugu dambeeya waa wareegga midabka leh ee isha. Qofku si fiican buu wax u arki karaa maalintii marka uu helo iftiin ku filan, wuuna awoodaa inuu arko midabyo badan oo kala duwan. Laakiin dhanka kale, wiilka isha ma awoodo inuu isballaariyo wax ka badan sida uu yahay. Sidaas darteed, awoodda bini'aadanka ee ah inuu mugdiga wax ku arko waa mid daciif ah oo aana dhicinba. Indhaha bisadu waa ay ka weyn yihiin marka loo eego jirkeeda iyo maskaxdeeda, taasoo sabab u ah muuqaal ahaan waxay wax ka arki kartaa mugdiga, maadaama wiilka isha ee bisadu uu yahay mid taagan oo aan wareegsanayn sida qofka oo kale, taasoo siinaysa awood weyn oo diiradda ay ku saari karto wax kasto. Maxaa yeelay bisadu waxay awooddaa inay mugdiga wax ku aragto ayna wax kasta ku ogaarsato, maadaama ay isheedu gaarto 500 cabir ahaan, halka bini'aadankuna uu yahay 15. Eeygu wuxuu ka duwan yahay midda bisada, waxaana eeyga lagu xantaa inuu arki karo oo keliya midabada caddaanka iyo madowga. Eeygu wuxuu awoodaa inuu arko midabada laakiin qaab xadidan, iyadoo la og yahay in eeygu wax si fiican uu ugu arki karo mugdiga. Laakiin waxaa xaqiiqo ah in uu eeygu wax ka arki karin meel aad uga fog, maadaama uu eeygu 6 mitir uu keliya wax ka arki karo, halka bini'aadankana uu wax ka arki karo meel aad uga fog 6 mitir. Shimbiruhu waxay leeyihiin awood sare oo ay meel fog wax kaga eegan karaan, gaar ahaan markay shimbiruhu subaxii u kalahaan ugaarsigooda, taas oo ka dhigaysa inay arkaan waxyaabaha ku hareeraysan had iyo jeer. Waxayna arki karaan oo keliya midabka buluugga. Fardaha iyo dameerada waxay indhaha ku leeyihiin dhinacyada madaxooda, mana ahan sida dadka oo kale. Sidoo kale waxay arki karaan oo keliya midabada madow iyo kuwa caddaanka, halka dameerku uu arki karo jinka.